xuquuqda uu inagu leeyahay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam innaga oo ilaahay ugu dhowaanayna allana ku caabudayna xuquuqdiisa waxaa ka mid ah alintisaaru lahu nebiga in loo hiiliyo calayhi salaatu wasalaam haddii uu nool yaho lagu xadgudbo iyo haddii uu dhintay labadaba ilaahay baa waxau yihi ilaa tansuruuhu faqad nasarahu allah haddii aydaan u hiilinna ilaahay baa u hiiliyey faaladiina aamanuu bihi wacazaruuhu wanasaruuhu waattabacuu nuura aladii unzila macah ulaa'ika hum almuflixuun dadka nebiga isgarab taaga ee u hiilinaya kuwaasaa horu maray oo liibaanay baa ilaahay uu leeyahy subxaana wa tacaala xuquuqda nebi maxamed waxaa ka mida nashru dacwati qofka xaqiisa siinaya waa qofka dhaxalkiisii faafinaya ee ku dhaqan keliya aan ku daynina siduu nebigu ugu taagnaa diinta inuu dadka gaadhsiiyo oo uu faafiyo isaguna sii faafinaya ilaahay baa wuxu uhi qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman ittabacanii dadka casharkaa u dhig nebi maxamedoo waxaad bartaa in diintan sidaad adigu dadka u gaadhsiinayso iyaguna ay u gaadhsiiyaan ummaddana wuu amray markii uu sagootinayay xajatulwadaaca wuxuu uhi balliquu cannii walow aaya aayadna ha ahaatee diinta dadka iga gaadhsiiya dhaxalkaasuu nebigu ummadda u keenay markaa qofka jecel nebiga ee ku dayanaya ee xaqiisa siinaya xilka ummaddana qayb buu qaadaya iyo diinta kaalintu ku leeyahuu qaadanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a xuquuqdiisa tawqiiruhu wa tacdiimu qadri in la weyneeyo la sharfo waxaa ka mid a maxabatu aalihi wa aswaajihi wa asxaabihi wa ixtiraamuhum in la jeclaado nebiga aalkiisa iyo oorihiisa iyo asxaabtiisa weynayntiisay ka mid tahay dadkaa uu weynaynayey iyo xuquuqduu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam nebigu waxa uu leeyahay laa tasubuu asxaabii asxaabtayda ha caayina waxay iyagu bixiyeen wakhtigii la baahnaa isagoo yar ma gaadhayo waxa faraha badana bixiseen wakhtiga dambe dhegley ama nuskiilo raashina oo asxaabiguu bixiyey buurtaa wax la eegoo dahaba haddaad bixisaan ma gaadhaya buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam aalu beytkiisa marka uu ka warramayana nebigu waxa uu lahaa innii taarikun fiikum athaqalayni kitaaba allahi wa citratii lan yaftariqaa xataa yarida alxawl waxaan idinkaga tegay laba arrimood oo culculus waa qur'aanka iyo aalu beytkayga mana kala tegayaan ilaa darka la isugu yimaado laga cabayo maalinta qiyaamaha marka aalu beytku dee waa kuwa nebiga rumeeya calayhi salaatu wasalaam ee xigtadiisii gaalnimada adduunyada kaga tegay maaha kuwaasi waa ummad kale oo ummatulkufri weeye aalu beytka marka la weyniinayna sida shiicadu ay ugu xadgudbeen ay uga dhigeen waxaanay ahayn oo darajadoodii ay u dhaafiyeen nebigana qaarkood ugaba horraysiiyeen sidaa maaha taasi waa xadgudub laga yaabo mararka qaarkood qofka inay diinta ka saarto nebiga calayhi salaatu wasalaam xuquuqdiisa waxaa ka mida in lagu salliyo siduu ilaahayba qur'aanka kariimkaa inagu faray ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima weliba maalinkan jimcada aynu joogno inuu qofku salliga badiyaa wax weyn weeye habeenka jimcaha iyo maalinka jimcaha salligana faa'iidooyinkiisa waxaa ka mida qofku wuxuu ku helayaa shafaacada nebiga adduunyadana ilaahay humuumtu kaga dulqaadaya warwarka iyo walaaca dadka hadda ku badan waxyaabuhu ilaahay faraj addoonka uu kaga siiyo wey nebiguna calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa waxa uu ku xusay qofka bakhiilka ah inuu yahay nebiga ka magaciisa maqla ee aan ku salliyin rasuulka sala allahu calayhi wasalam wax kale umuu qabtee nebiga haddii uu ku salli waayo waxaa ka mid a xuquuqda nebiga oo ah arrinta tobnaad muwaalaatu awliyaa'ihi wa buqdu acdaa'ihi cidda nebiga jecela ma xidhiidhisa ee xaqiisa siisa in la xidhiidhiyo la soo dhoweeyo cidda cadowga ku ah ee colka ku ah ee la dagaalamaysa ee caayaysana in la fogeeyo oo laga durko suuratu lmujaadala aayaddaa u dambaysa siduu ilaahay ku sifeeyey laa tajidu qowma yu'minuuna biاllaahi walyowmi alaakhiri yuwaadduuna man xaadda allaha warasuulah ilaa aakhir laaya nebiga calayhi salaatu wasalaam xuquuqdiisa waxaa ka mida wixii aynu garan weyno ama inagu adkaada inaynu sunnadiisa u celin sidaynu qur'aanka kariimkaa ugu celinayno aynu odhanayno qur'aanka aan masaladaa ka eegno si aynu ugu kala baxno axaadiidtiisuna waa xuja
sida qur-aanka oo kale loo daliishanayaa waa in loo celiyo oo sharci laga dhigto alkitaabu wasunna siduu isaguba ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa wuxuu uhi fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi waarasuul wixii aad ku murantaan dadka bulshada haddaad tihin madax iyo raciyad noocyadiina kala duwan ilaahay rasuulka u celiya waa qur-aanka iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam xuquuqdiisa waxaa ka mida tacalumu siiratihi waaliqtidaa'u bihi cilmiga siirada la ydhaa in la barto dadka qaarkood waxay akhristaan waxay ku sheegaan noofallo iyo sheekada gaalada sheekooyinkay qoreen iyo madaxdooda iyo faylasuufyadooda qayb kalena qisooyin ayaa had iyo jeer ay isku maaweeliyaan laakiin waxa diin iyo qiso iyo cibro iyo cido iyo waanaba kugu filan siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam marka hadday carruurta sheeko loo dhigayo tahay iyo haddii wax lagu maaroobayo ay tahay oo waxa laga faa'iidaysanaya wax cilmi aada u badan waana arrinta keeni karta nebiga in lagu daydo waayo xadiidkiisu wuxuu ka kooban yahay qowlkiisii iyo ficilkiisii iyo akhlaaqdiisii iyo habku ilaahay u abuuray intaba siiradaa laga helayaa marka cilmu siira in aada loogu dhigo iskuullada iyo jaamacadaha iyo masaajidada iyo guryaha waxay keeni kartaa in nebiga lagu daydo calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisiina la fahmo iyo siduu u noolaa noloshiisa qaybaha kala duwan da-yartuna ay ku barbaaraan ku dayashadiisa iyo jacaylka nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa wuxu uhi laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kaana yarju allaha walyowma alaakhir ku dayasho wanaagsan baa nebiga idinku sugan qofka ilaahay rajaynaya inuu aakhiro ilaahay ishortaagu la kulmo macnaheedu waxa weeye waxaad ku dayan kartaa markaad siiradiisa taqaano nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a xuquuqdiisa ricaayatu xaramihi wa masjidihi wa qabrihi wa madiinatih xaramkiisa nebiga in la ilaaliyo xil ummadda islaamka o dhan saaro weeye cadowguna waa kaa qabsanaya muqadasaadka mar walba markaa dowladda haysata iyo cidda ag joogta un xilkaasi ma saaree ummadda islaamka dhammaantood ayuu saaran yahay iyo masjidkiisa in la ilaaliyo iyo qabrigiisa iyo madiinadiisaba madiinaduu nebigu dowladda islaamkana ka asaasay haddana uu ku aasan yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxyaabahaasoo dhami waa xuquuqda xilku inaga saaran yahay inaynu nebiga siino calayhi salaatu wasalaam innaga oo ilaahayna ugu cibaadaysanayna rasuulkuna waajibkii uu geystay wax badan uga mahadnaqayna marka waxaynu u baahannahay in arrintani qalbigeennana ay ku weynaato ogaanana qaybaha iimaanka inuu ka mid yahay nebiga calayhi salaatu wasalaam xaqiisa in la siiyo iyo jacaylkiisu taasoo aynu ku barbaarinayno aljiil annaashi qarniga soo koraya dadkuna uu ku wada dadaalaya dhammaantii oo siyaasad iyo hadaf lagu wada socdo ay tahay si qabashka iyo madmadowga maanta la baahinaya uu meesha uga baxo allahuma arina alxaqa xaqan warsuqna itibaaca وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام